ciidamada Ethiopiana ayaa laga yaabaa in markii ugu horeysay loo diro marinka Gaza waxaana ay qayb ka noqonayaan qorshaha madaxweynaha Mareykanka uu soo jeediyay 20 qodob ka kooban. Haddaba warka ku saabsan in Ethiopian la geynayo marinka Gaza ayaan ilaa iyo hadda ka soo bixin labada dhinac ee Mareykanka iyo wadanka Ethiopia, balse haddaba jaridada la yiraahdo The Times of Israel oo iyadu soo xiganaysa laba nin oo diblomaasiyiin ah oo reer galbeed ah waxay u sheegeen in uu jiro wada hadal dhex maray ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed iyo xoghayaha arrimaha dibadda ee wadanka Mareykanka Marco Rubio oo ku saabsan in Ethiopianka laga dalbaday in ciidamo ay ku deeqaan oo ay qayb ka noqdaan howlgalka nabad ilaalinta ee ciidamada Ethiopianka laga yaabo in loogu diro marinka Gaza. Madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump uu soo jeediyay ayaa waxa uu dhigayaa in ciidamada Israa'iil ay saga baxaan marinka Gaza iyo in hubka dhigis lagu sameeyo ururka mintidiinta Falastiiniyiintu ay leeyihiin ee Hamas. Wax kale oo qorshahaasi ku cad in ciidamo nabad ilaalin ah oo adduunyada meelo kala duwan ka socda la geeyo halkaasi. Wadamada haddaba laga yaabo inay ka dhaga adeegaan waxaa la sheegayaa inay ka mid noqon karaan wadanka Sacuudi Carabiya iyo dalka isu taga Imaaraadka Carabta, balse dalal kale oo Qatar ay ka mid tahay, Masaaridu ay ku jirto iyo dalka Indonesia ayaa iyagu hore waxa ay u aqbaleen qorshahaasi ay ciidamo ugu dirayaan marinka Gaza. Balse Israa'iil qudheeda ayaa haddaba waxa la tilmaamayaa in ay iyaduna door ku yeelan doonto cidda ay noqonayaan kuwa halkaasi la geynayo, iyada oo dabcan la sheegayo wadanka Turkiga in ay ka mid noqon doonaan wadamada aan loo ogolayn inay halkaasi tagaan.